waan islaamay dhammaantiinba waan soo dhaweynayaa waxaynu meesha ka sii wadaynaa casharadeenii gaagaabnaa ee aynu ugu magac darnay ereyga ilaahay iyo murtida soomaalida innagoo eegaynaa sida ay murtida soomaalidu u qaabilsan tahay ama aanay u qaabilsanayn ereyga ilaahay oo runta innagoo maalinba ama casharba ku soo qaadanayna mahmaah soomaaliyeed ama oraah soomaaliyeed waayo mahmaahyada ama oraahu waxay ka turjumaan bulshadaasi sida ay u aragto nolosha taas oo iyaduna saameyn ku yeelata horumarkooda ama horumar la'aantooda nabadooda ama nabad la'aantooda bini'aadamnimadooda ama bini'aadamnimo daradooda mahmaahyo dhowr baan soo eegnay oo ay ka mid yihiin aqoon la'aan waa iftiin la'aan geed walba midhihiisu dhalaa waxaad isla jeceshahay walaalkaana la jeclow iyo kuwo kale oo dhowra maanta waxaynu eegaynaa maamaha kale ama oraah kale taas oo ah aadane eed ma waayo tan oo macnaheedu yahay qofka bini'aadanka khalad lagama waayo ama qofka bini'aadanka waa kii khalad gala marka dusha laga eego mahmaahdani waa mahmaah saxa waayo qof bini'aadana oo aan khaldamin ma jiro ama beri hore ha jiro ama hadda ha jiro ama ha soo socdo qofka bini'aadanka waa kii khaldama waxaynu ka bilownaa khaladka inagoo carruura waxba kala garanayn marka aynu kasii weynaanana ama kasii duqownaba waynu kasii darnaa inkasta oo mahmaahdaasi ay u muuqato mid saxsan dusha oo ay run tahay in bini'aadanku eed la'aan aanu ahaan karin oo khalad uu samaynayo haddana marka ereyga ilaahay runta loo eego mahmaahdaasi waxay noqonaysaa mahmaah aan gaadhin meeshii uu ilaahay rabay waayo waxa uu ereyga ilaahay ay soomaalidu ugu yeedhayso eed ama khalad ereyga ilaahay wuxuu ugu yeedhaa dembigu waa maxay dembigu waxa weeye amarka ilaahay oo la jebiyo ama ilaahay oo la adeeci waayo ilaahay hortiisa aad iyo aad buu dembigu ugu xun yahay ereyga ilaahay bibalka waxaa ku qoran ilaahay waa quduus oo agtiisa innaba dembi uma soo dhowaan karo ama ilaahay dembi ma aqbalayo noocuu raba ha noqdee waad xasuusataan waalidiinteenni ugu horreeyay aadan iyo xaawo siduu ilaahay geed midha oo keliya ay ka cuneen uu jannada uga soo saaray ilaa maantana innagoo farcankoodii aynu marba gidaar isku qaadayno si aynu jannadii laynaga soo saaray dib ugu shaqaysano ama dib ugu noqono marka halka ay soomaalidu kaga mahmaahayso aadane eed ma waayo ereyga ilaahay quduuska wuxuu odhanayaa dhammaan way wada dembaabeen oo gaadhi waayeen ammaanta ilaah aayaddan laba qaybood bay u qaybsataa dhammaan way wada dembaabeen bini'aadanka oo dhammi way wada dembaabeen kuwii hore kuwa hadda jira iyo kuwa soo socda waa dembiilayaal mid weyn iyo mid yarba mid muhiima iyo mid aan oo madaxa iyo mid aan madax ahaynba dacaddii aadan iyo xaawo ayaynu inagoo oo bini'aadana dhammaanteen maadaama aynu iyaga ka dhalanay oo ka soo faracnay aynu ka dhaxalnay xataa nebiyadii dhegayso waxa uu nebi daawud ku odhanayo ama boqor daawud siduu baybalku u yaqaano uu ku odhanayo sabuurka ilaahow iigu naxariiso sida raxmaddaadu tahay oo xadgudubyadayda igaga tirtir sida naxariistaada badnaantaydu tahay xumaantayda iga wada maydh oo iga nadiifi dembigayga waayo anigu waan ogahay xadgudubyadayda oo dembigayguna hortaydu yaallaa had iyo goorba adiga keliya ayaan kugu dembaabay oo waxaan sameeyey wax hortaada ku xun inaad xaq ahaatid markaad hadashid oo aad daahir ahaatid markaad xukunko nebiyadii kale ama nimankii kale ee uu ilaahay isticmaalay oo dhani sidaa ayay u dembaabeen laakiinse waxay ahaayeen kuwo marka uu ilaahay dembigooda ku caddeeyo ka soo noqdo oo ka toobad keena mar kasta ilaahayna uu sidaa iyagoo daciifa uu isticmaalay ilaahay oo keliya ayaa walaalayaal quduusa sida ereyga ilaahay runtaa ku qoran ilaah runlow ha ahaado inkastoo nin waliba beenlow yahay sida qoran in xaq lagaaga dhigo hadalladaada waa ilaahay oo aad
liibaantid markaad xukunto ilaahay oo keliya ayaa quduusa sidaa daraaddeed ilaahay oo keliya ayaa wada xukumi kara quduusnimadiisa aawadeed qof dembiile ahi qof kaloo dembiile ah ma xukumi karo waa taa sababta uu leeyahay nebi daawud inaad xaq ahaatid markaad hadashid oo aad daahir ahaatid markaad wax xukunto isagoo ilaahay la hadlaya markaa walaalayaal ereyga ilaahay wuxuu odhanayaa dhammaan way wada dambaabeen dhammaan khalad bay wada galeen ma aha oo gaari waayeen ammaanta ilaah waxay ku guuldaraysteen inay xejiyaan amaradii ilaahay oo adeecaan waxay gaari waayeen ammaantii iyo sharaftii iyo wanaaggii uu ilaahay iyaga la rabay taas waxaa caddaynaysa waalidkeennii aadan iyo xaawo oo jannada iyagoo wax walba lagu siiyey oo la karaameeyey oo aan dhimasho arkayn oo ilaahay arka xataa ilaahay baa arki jireen baa lagu leeyahay jannada dhexdeeda ayay waxay ka doorteen wix allaale wixii sharaftii ilaahay iyo ammaantii ilaahay midho geed yaroo midha shaydaankii bay ka raaceen marka waxa weeye maxaad ka filaysaa innaga oo bini aadan oo maanta kasoo farcanay oo adduunkan joogna markaa walaalayaal waxaynu eedda ama khaladka u haysano ilaahay agtiisa miisaan weyn bay ka leedahay isagu wuxuu u haystaa dembi ereyga ilaahay wuxuu odhanayaa ama miyaynaan ogeyn in kuwa xaqa daran ama dembiilayaashu aanay dhaxlayn boqortooyada ilaah jannada ilaahay iyo barakada ilaahay ma dhaxlayaan yaan laydin khiyaamayn ama dhilayaasha ama kuwa sanabka caabuda ama kuwa sinaysta ama khaniisiinta ama tuugaga ama kuwa wax badan damca ama kuwa sakhraama ama kuwa wax caaya ama kuwa wax dulma ma dhaxli doonaan boqortooyada ilaah waa tusaalayaal oo keliya dembiyada bini aadamku galaan lama dhammayn karo qabyaaladiistayaasha ku jira dadka naca ee xumeeya ama ku xumeeya qabiil ama diin ama jinsi ee raysistaha baa ku jira waxaa ku jira kuwa masaakiinta wixii loogu dhibay ka cuna korabta ama musuq maasuqa sida ay soomaalida madaxdeedu u badan tahay iyo kuwo badan mashaqaystayaasha ku jira raba inay dad kale waxooda ku noolaadaan ee iyagu aanay shaqaysan iyo dembiyo badan oo kale ma gelayaan boqortooyada ilaah baa ku qoran jannada ma gelayaan laakiinse waxay galabsadeen xukun oo haddaba xukunka dembigu muxuu yahay ayaa su-aashu noqonaysaa ereyga ilaahay ayaa inoo sheegaya wuxuu odhanayaa mushahaarada dembigu waa dhimashada laakiinse hadiyadda ilaah waa nolosha weligeeda ee laga helo rabbigeenna ciise masiix dhimasho nebi aadan markii uu ilaahay uu dambaabay wuxuu ku yidhi ama markuu uga digayay midhihiinoo hubaal waad dhiman doontaa haddii aad cuntid midhaha hubaal waad dhiman doontaa xataa naar baad gelaysaa lama odhan laakiin dhimashadaa laba ah dhimashad waxay u keentay aadan hadduu jannada joogi lahaa uu iska noolaan lahaa weligii ilaahay buu la noolaan lahaa waxay u keentay dhimasho jira jannadii oo laga tuuray oo dhimasho jira oo cimrigiisii la xadiday waxay u keentay oo kale bini aadanka naar dhimasho abadiyana ayuu baybalka u yeedhaa ilaahay hortiisa oo lagaa dheereeyo maalinta yoomalqiyaamo ama aakhiro naarta dabka keliya maaha laakiin waxaa ka sii daran ilaahay hortiisa oo lagaa dheereeyo marka dembigu waxa weeye xukun xun buu ilaahay ayuu wuuna necab yahay laakiinse rajaa jirta hadiyadda aayaddan waxay noqonaysaa mushaharada dembigu waa dhimasho laakiinse hadiyadda ilaahay hadiyad buuna siiyey waxa ina siiyey jid aynu kaga bixi karno dhimashada alla bariba uu inoo qalay aadan iyo xaawo markii ay dembaabeen ceebtoodii bay arkeen inay qaawan yihiin markii ugu horreysay dembi bay dareemeen ilaahay baa alla bari u qalay neef buu ku daboolay qaawanaantoodii qaawanaanta waxaa ugu daran laakiin qaawanaanta ruuxiyeenka ilaahay qaawanaanteenni wuxuu ku daboolay alla barigii oo ciise masiix one time hal mar inoo noqday dhammaanteenba isagoo ah ereygii ilaahay iyo ruuxa ilaahay oo aan in lahayn weligii dembaaban waayo isagu kamuu dhalan aadan laakiinse waa ereygii ilaahay hadiyadda ilaah nolosha weligeeda isaga ayaan ka helaynaa rajo baynu leenahay markaa aynu dembiga ilaahay ugu tegi karno dembi dhaaf ku weydiisan karno ciise masiix daraaddii ereyga ilaahay waxaa ku qoran masiixu waa inoo dhintay intaynu weli dembiilayaal ahayn
oo sidaasuu ilaah jacaylkiisa inoogu muujiyey inkastoo aynu dambiilayaalnahay ilaahay jacayl buu mar kasta bini aadamku hayay inuu badbaadiyo haddaba dembiga nin keliya aawadiis waa aadane waxaa dadka oo dhan ugu yimid xukun aadan markuu dambaabay lama odhan aadan iyo xaawo labadiina keliya aan jannada iga saarayaa waxaad dashaan maadaama aanay dambaabin jannada ha iska joogin all dembiga weyna saameeyey dabadaynu jannada ka joognaa weli dembiga nin keliya xukun baa inoo sugnaaday sidaasoo keliya nin keliya xaqnimadiisu sameeyey aawadeed waxaa dadka oo dhan ugu timi hadiyad in xaq laga dhigo oo ay noolaadaan ciise masiix xaqnimada uu sameeyey keliya ciise masiix iyo aadan waa bilcagsi bay isku yihiin waxaa bini aadamku haddana mar labaad ugu sugnaatay jid ay ilaahay ugu noqdaan oo ay ugu toobad keenaan waayo sida nin keliya caasinimadiisu kuwo badan dembiyalayaal looga dhigay waa bini aadanka waa aadan sidaasoo kalena nin keliya adeecidiis ayaa kuwo badan xaq looga dhigi doonaa waa ciise masiix markaa walaalayaal ciise masiix ayaa jidka keliya aynu ilaahay dembi dhaaf ugu keeni karno alla bariga keliya ee ilaahay noo qalay ka keliya ee inta aan lahayn ee ilaahay inagu aqbalayo markaa walaalayaal waxaan rajaynayaa inaad qiimeyn ku samaysaan noloshiina oo aydin waxyaalaha khaladaadka aad u haysataan ayna ogaataan ilaahay agtiisa inay ka yihiin dembi aada u weyn oo uu necab yahay oo uu xukumayo sidaa daraaddeed ayay mahmaada odhanaysaa aadmi eed lagama waayo ay u nusqaamaysaa ereyga ilaahay waayo waxay ahaan lahayd inay ahaato bini aadan dembi lagama waayo sida ereyga ilaahay qorayo oo odhanayo dhammaan way wada dambaabeen oo gaari waayeen ammaanta ilaah waad mahadsantihiin ilaahayna ha idin barakeeyo